baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta isku raacay in doorashada madaxtinimada la qabto 17 bisha November ee sanadkan sida uu ku soo waramayo wariyaha telefishinka ee nooga soo warama halkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle. xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankii u dambeeyay kalfadhigoodii afraad waxaana kulankaasi loogu dooday qodobka 45aad fidqadiisa koowaad ee dastuurka koonfur galbeed kaasi oo ku xusan in doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ay soo dooran karaan kaliya ergo iyo odayaal dhaqameedyo laga soo kala xulay deegaanada maamulka koonfur galbeed waxaana kulankaasi xildhibaanadu ay ugu doodeen in la bedelo qodobkaas laguna bedelo in xildhibaanadu ay xor u noqdaan doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed marka la gaaro muddada doorashooyinka maamulka koonfur galbeed. dood dheer kadib gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa cod u qaaday bedelida qodobka 45aad ee dastuurka maamulka koonfur galbeed. 110 mudane oo kamid ah xildhibaanadii soo xaadirtay ayaa u codeeyay in la bedelo qodobkaasi laguna bedelo in xildhibaanadu ay doortaan madaxweynaha maamulka xilliga doorashada. 3 kamid ah xildhibaanada ayaana diiday sidoo ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Cabduqaadir Shariif Sheekuna Maye ay ahayd runtii qodob dastuur marka laga hadlayana sida dastuurkeenu ku qoran in laba meelood saddex meelood laba inay goobjoog inay ahaadaan tiradii maanta joogtayna waa tiradii la rabay iyo in ka badan waa soo xaadireen 113 xildhibaan joogtay 113 xildhibaan 110 xildhibaan waxay codkoodii ay u codeeyeen oo haa in macnaha qodobkaas 45 faqradiisa koowaad la bedelo laguna bedelo in doorashada madaxweynaha ay cod hal dheeri ah ku dooran doonaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. baarlamaanka waaye doorashada soo socota waxa wax dooranayo halka 3 xildhibaan marka ay ka soo horjeesteen saas darteed maadaama tiro aqlabiyad ah tiradii la rabay tiro ka badanba ay isku raaceen qodobkaas la bedelo wixii maanta ka dambeeyay qodobkaas dastuurka ah waa la bedelay waxaana lagu bedelay sida soo socota oo ah qodobka 45aad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya faqradiisa koowaad ee ay hore u dhigayeen in madaxweynaha ay cod hal dheeri ku soo doortaan ergo iyo odayaasha dhaqanka waa la bedelay waxaana lagu bedelay wixii ka bilowda maanta oo taariikhdu ay tahay 19 February fadhigii uu yeeshay baarlamaanka codeyn kadib waxaa loo bedelay qodobkaas in madaxweynaha ay cod hal dheeri ah ku soo dooran doonaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed mudane Cabduqaadir Shariif Sheekuna Maye ayaa sheegay in 17 bisha November ee sanada 2018 taas oo ku eg muddada xilka uu haynayo madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayna noqonayso maalinka la dooranayo madaxweynaha cusub ee maamulka. la socotaan muddada xilhaynta ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ay ku eg tahay 17 bisha November isla markaasna sida hore loo iclaamiyay maantana aniga aan iclaaminayo in 17 November oo ku astaysan maalintii la dhisay ama dhidibada loo aasay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ka kooban gobolada Baay Bakool iyo Shabeellada Hoose oo ku beegnaa 17 November isla markaasna ay ahayd maalinkaas maalinkii la soo doortay madaxweynaha 4 sano ay ka soo wareegtay muddada xilhayntiisa in 17 November ay noqoto maalin rasmi ah oo la qaban doono doorashadii madaxweynaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle TV-ga Somali Cable magaalada Baydhabo.